hajoojin hadda silica si noloshaada inta kale aad ugu noolaatay sidii horyaal ayuu yiri halyeyga feerkee Mohamed Ali Kalay daafacan horyaal ku jirin iyo macallin wadista gawaarida ayaa xiddi ka ahaa kooxdii dhawaan xaqiijisay guushoodii ugu horeysay Soomaaliya isreebka koobka adduun mid ka mid ah daafacyada Soomaaliya oo sameeyay xogaa taariikh kubadda cagta ayaa hal ku dhigaasi ka dhigay hal gudhigiisa gaarka ah magaciisu waa Maxamuud Cali sida iska cad waa magac gaar ah laakiin aad ayaan ugu hanweynahay ciyaaryahankan ayaa su'aashan jawaabteeda siiyay FIFA habeenkii Ahad Night ee magaalada Djibouti 5 September Maxamuud Cali waxa uu ka shalaynayaa hadda in uu isku qoro taariikhda Soomaaliya shaqaalihii hore ee warshada kontonka ganiya Sterling ugu shaqeyn jiray ayaa ahaa ciyaaryahankii ciyaarta markii uu qarankiisa hal eber ku garaacay Zimbabwe si uu ugu diiwaangeliyo guushoodii ugu horeysay ee reebka koobka adduun waa astaantii ciyaaraha dabcan dadku marar badan ayay igula kaftamaan magacayga laakiin guud ahaan ma ahin mid aad u adag in la qaato weligay nafteeda isma barbardhigi doono halyeygan oo kale labada yaga ciyaarood aad bay u kala duwan yihiin taasi waxa ay tahay waxaan ku kala duwannahay laakiin dhammaanteen waxaan nahay guulaystayaal sida Maxamed Cali dabeecadda guuleed waa qayb kamid ah DNA-gayga daafacan dhexe oo 27 sano jir ah ayaa si dhib ah u cadeeyay 2 sano ka hor iyadoo indhaha Afrika ay ku sii jeedaan isaga iyo kooxdiisa la yaab ma leh intii lagu gudo jiray guushii taariikhiga ee Zimbabwe Moha oo ilaa hadda saftay 7 kulan ayaa kamid ahaa ciyaartoydii ugu fiicnaa xidigaha Ocean Star ee maalinta waxa uu mudnaa in lagu magacaabo Man of the Match-ka ma garanayo inay tahay wax qabadka ugu fiican ee aan weligay soo bandhigo laakiin hubaal waa natiijada ugu fiican ee aan weligay ku lug lahaa Mahmoud ayaa kumanaan meel u jira gurigiisa oo ku yaala Manchester halka uu ugu ciyaaro daafac dhexe Curtin Ashton National League North shaqadiisa maalinlaha waa macallin wadista gawaarida hadda koox cusub ayuu heshiis u saxiixayaa si uu ugu biiro xasilooni la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliya awgeed xidigaha Ocean Stars waxay ku qasbanayeen inay ku ciyaaraan lugta gurigooda Elhaaji Xasan Guuleed Abdidoon oo ay daris yihiin waana Djibouti isreebka koobka adduunyada ee 2022 wareegiisa koobaad waxaana cross uu dhanka bidix ka keenay ciyaaryahan Axmed Cali oo la dhashay Maxamuud ahna kabtanka Soomaaliya uu madax ku helay Anwar Sid Cali Shakunda ka oo doomariyay goolahay Elvis Kibazeze Frimbigi ugu dambeeyay Maxamuud iyo saaxiibadiisu waxay ku daateen rooga iyagoo ka fikiraya waxa ay qabteen Soomaaliya ayaa laga badiyay 19 kulan ee ugu dambeeyay 8 sano ee ugu dambeysay si xigtay ciyaaraha ay ciyaareen waxay ku jabeen kulan walba oo ay ciyaareen ciyaaraha Afrika laakiin kulankan saameyn gaar ah ayuu lahaa Soomaaliya weligeed umaysan soo bixin tartan weyn lagumana tilmaami karayo mid kamid ah dalalka ugu awood badan kubadda cagta balse dalkan oo la dhacaya sidii uu mar kale cagihiisa ugu istaagi lahaa kadib dagaalo sokeeyo oo daba dheeraaday oo soo bilowday 9-meeyadii ayaa laga yaabaa inay ku qancaan guushii xasuusinta mudneed ee habeenkaasi guusha sida oo kale ah waxay keentay dadka waaweyn inay ku abuurto farxad ayuu yiri daafacan waxay ku yeelatay saameyn balaaran dalka oo idil ayaa la hadal hayaa arintan Soomaaliya waa wadan kubadda cagta ah taageerayaashu aad ayay u xiiseeyaan xogta duruufaha ciyaarta quruxdeeda ayaa ah mid mar walba aad u camiraysa dadku way dhibaataysan yihiin laakiin dhibaatada waxa mar walba ka saara waa kubadda cagta suurtagalnimada waa mid aad u weyn laakiin taasi nasiib darro kama muuqan karayso qiimeynta adduunka FIFA ujeedadanu waa inaynu qaabino tartamo badan iyo inaynu kor u qaadno meeqaamkeena caalamiga waxaan ku jirnaa heerarkii ugu horeeyay ee geedi socod ka bilowday guushii Zimbabwe runtii waxaan filayaa in ay albaabada u furi doonto jiilka soo socda waxaana laga yaabaa inaan maalin ka qayb qaadan doono koobabka waaweyn ee qadamada Afrika guri cafe oo ku yaala wadada Stratford ee Manchester indhaha Mohamed way iftiimayaan ka hor inta aynaan ku fikirin rikoorkeena waxaan ka fikirnay inaan xisaab fiican ka bixino nafteena oo aynu helno guusha Frimbigi ugu dambeeyay waa markii aan bilownay inaynu ogaano sida weyn ee guusha ay saameyn inoogu lahayd
waxaan ku damaashaadnay garoonka dhexdiisa anigii walaalkay inaan awoodnay inaan sidan u dabaaldegno waxay ahayd mid cajiib ah. kadib waxaynu ku soo laabanay hoteelka. baska kooxda muusiga ayaa ka daarnaa, qof walba wuu qoob ciyaarayay. isla markii aan soo gaaray hoteelka waxaan shitay wifi-ga teleefankayga. habeenkii oo idil waxaan la hadlayay qoyskayga. waxa uu aaminsan yahay in Zimbabwe ay dhayalsatay 11kii da'da yarta ahaa qurba joogtan ahaa ee kulanka ku soo bilowday. taa waxay ka dhalatay dhibaatadii garoonka dhexdiisa ahayd una sababay xulka Soomaaliya inay guusha gaaraan. Shakunda waxa uu u safanayaa markaa kulankiisii ugu horeysay kooxda caasimadda Soomaaliya ka dhisan ee Elman. dhammaanteen waxaanu ku kulannay halka. ciyaartoyda qaarkood way daalanayeen. hal maalin ilaa 2 maalin ka hor ciyaartoy ayaa sii dhaqaaqay. xerada tababarka ee Djibouti waxay ahayd mid aad u camiran. safarka Mahmoud waxa uu ka bilowday dalka Holland kadib markii qoyskiisu ay ka carareen dalkooda dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka socday 91 ilaa 2006. waalidkay waa Soomaali laakiin waxaan ku dhashay kuna barbaaray Netherland. waxaan leeyahay 2 walaalo ah oo iga waaweyn kuwa oo ku dhashay Soomaaliya, laakiin Soomaaliya dagaal ayaa ka socday. marka waxa qasab noqotay inaynu ka tagno waxaan go'aansanay inaynu aadno Holland. waxaan halkan ku ciyaaray xil ciyaareedkaygii ugu horeeyay. waxaan u saftay kooxda koowaad ee Alvansa Boys. waxa uu ka hadlayaa kooxda Alvanis ka dhisan ee Drechin galbeedka Netherland ku ciyaarta. kadib waxaan imid Manchester 7 sano ka hor markaan ahaa 18 sano jir. wiilkan waxa uu soo maray wadooyin adag si uu u guuleysto, laakiin kuwa uu ku wanaajiyay nafsadiisa ayaa ah kuwa la xusi karo. 6 bilood ee ugu horeysay ma aanan ciyaarin. waxay ahayd mid aad u adag. kadib waxaan u siyaxay Norwich Victoria. xil ciyaareedkaygii labaad waxaan u saftay Soomaaliya 2015. waxaan wajahay Nature, laakiin markii aan soo laabtay waxaan ku dhibtooday inaan dib ugu laabto kooxdayda. kadib maamulaheeni Jim Gannon waxa uu u baxay gobolka Stockport oo aad ogtahay siday uga socoto kubadda cagta. markaa dhamaadkii xil ciyaareedkaasi waxaa qasab noqotay inaan u saxiixo Classport North End. inta oo kaliya ma ahan caqabadaha uu la kulmay Mohamed, laakiin kuwa kale oo shaqo ku raadinaya ayaa jiray. shahaadooyinkayga ayaan dib ugu soo laabtay guriga. ma aanan wareejin karin, sidaas daraadeed waa inaan sameeyaa KCCA si aan dib ugu bilaabo mar kale. waxaan dhigtay kuliyadda. waxaan go'aansaday inaan aado oo aan shaqo hore ka helo ciyaarista kubadda cagta aan waqti u helo. waxaan ka shaqo bilaabay warshad nin aan aqaano ciyaaryahana uu leeyahay. waxa aan qaadan jiray 50 euro maalintii. waxaan shaqaynayay kaliya maalmaha Axadda. markii hore waxaan ka heli jiray kubadda cagta, sidaas daraadeed waxaan haystaa 3 maalmood 150. wax badan ma ahan, laakiin waxaan kula noolaa gurigayga waalidkay. waxaan maalin walba aadi jiray qolka jimicsiga anigoo isku dayaya inaan sare u qaado jaranjarada noloshayda. dabadeed mid ka mid ah saaxiibadeeda leh dugsiga wadista gawaarida ayaa igu yiri, waxaan ku helay fursad ee ma xiisaynaysaa. waan ka fikiray waqti badan. waxaan helayaa 1 maalin oo kaliya oo warshada ah. ma jirto wax iga lumay. waxaan isku dayay inaan xirfad u yeesho kubadda cagta. waana shaqo dabacsanaan leh oo aan rajeynayay inaan qabto, sidaas daraadeed waan yeelay. 2 sano kadib Maxamed hadda waa laga soo tagay qaybna kama ahan ciyaartoyda Soomaaliya, laakiin weli qanacsanaan ayuu dareemayaa. kadib guushii ay ka gaareen Zimbabwe waxay si adag ugu soo laabteen xaqiiqada. waxa uu arkay waxyaabo badan oo nolosha isbedelaya kuwa oo sababay u tahay guusha oo la gaaro. waxaan soo laabtay Jimcihii. Sabtidii waxaan helay ciyaar, laakiin ma aanan filayn inaan kulanka ciyaari karo. waa laga badiyay kooxdaydii, laakiin ciyaaryahan fiican ayaan ahaa oo bandhig fiican sameeyay. kadib waan nastay. waxaan arkay qoyskayga, laakiin maalintii labaad ee shaqadan ku soo laabtay waxaan helay macaamiil cusub ka oo igu yiri, ma waxaa tahay ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara? ها waxaan u ciyaaraa Soomaaliya ayaan iri. waxa uu yaqaanay kabtanka Zimbabwe Alex Mutubu oo ku nool Manchester. waxa uu yiri, miyaa taqaanaa Alex? waxaan daawanayay ciyaartaasi, ma rumaysan karayo in macallinkaygu uu yahay ciyaaryahan kubadda cagta ah. waxay ahayd wax lagu qoslo. ardaydii kale ayaa fariin ii soo diray aniga oo meesha ku jira. cajiib, waxaan kugu arkay BBC-da hambalyo ayay dhammaantoodii oranayeen. taasi waxay ahayd wax fiican,
waxaad garanaysaa sida ay u weyn tahay guushu waxay ahayd mid aad u weyn oo dadkoo idin u muujin karaysa in guushu ay tahay wax loo dhaqaaqo inaan nahay haliyey weligay ma aan tagin Soomaaliya laakiin waan ogahay haddii aan tagay in la soo dhaweyn doono waxaan leeyahay qoys mar walba taga Soomaaliya way fiican tahay inaan tago laakiin waxaan maqalnaa sheekooyin weerar ah kuwa ismiidaamin iyo qaraxyo sidaas daraadeed waan ka cabsanayaa xilligan inaan aado Soomaaliya Soomaaliya lugtii 23 ayaa looga badiyay kulankii Zimbabwe waxaana laga dhaliyay 2 gool oo soo daahay sidaa ayaana looga reebay ciyaaraha balse Maxamed waxa uu wali mar walba ku faani doonaa doorkiisii kulankaasi iyo inuu yahay haliyey Soomaali ah tobanaad qiimeynta FIFA waxayna 85 dhibcood ka sareeyaan Soomaalida ay la ciyaari doonaan balse inta badan ciyaarta waxay ka soo horjeeday xarigaasi rajada ay ka qabaan inay u soo gudbaan ayaa ahayd mid adag wareegga labaad ee isreebka koobka qadar 2022 waxa lagu garaacay jug aad u adag 13 daqiiqo ee ugu dambeeyay xulka Soomaaliya kuba oo kulanka ku lumiyay 3 gool iyo 1 gool wadar ahaana 3-2 tartanka uga baxay waraaqo ahaan waxaa jiray sohodin weyn oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Zimbabwe ayuu yiri Moha laakiin waa la tartanay innaga oo kor u riixnay ilaa waqtigii dhimashada ee lugta labaad sida iska cad waxay ahayd niyad in aynaan u soo gudbin wareegga xiga